rugta ganacsiga Hong Kong ayaa qaban qaabisay shir heer caalami ah oo looga hadlayo horumarinta suuqgeynta wax soo saarka shirkadaha Hong Kong iyo isku xirka ganacsiga Dubai. Munaasabadan oo ahayd mid aad u qiimo badan ayaa Dubai ka qabsoontay maalinimadii Isniinta, waxaana ka soo qayb galay boqolaal qofood oo ka socday shirkadaha wax soo saarka leh ee laga leeyahay Hong Kong iyo China iyo ganacsatada ku sugan dalkan, gaar ahaan magaalada Dubai oo boqolkiiba 80 ganacsigeedu ku tirsan yahay badeecadaha ay ka iibsadaan dalka China iyo Hong Kong. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay madaxa rugta ganacsiga iskaashiga shirkadaha Hong Kong iyo China, waxa uuna sheegay in Hong Kong ay diyaar u tahay inay ballaariso ganacsiga weyn ay la leedahay suuqa xorta ah ee Dubai oo ah meesha ugu badan ee loo iibgeeyo badeecadaha ay soo saaraan. qaybihii dambe ee shirka waxaa goobta lagu qabtay bandhig carweed aad u ballaaran oo ay shirkadda Hong Kong la wadaagaysay ganacsatadii shirka ka soo qayb galay. Si kastaba ha ahaatee, alaabihii halkaas lagu soo bandhigay ayaa ahaa kuwa aad u qiimo badnaa. dadweynihii ka qayb qaatay bandhigan ayaa aad uga qancay tayada iyo qiimaha badeecadihii la soo bandhigay maanta. gabagabadii shirka ayaan kaamirada la dhex qaaday goobta lagu qabtay bandhig carweedka, waxayna indhahaygu qabanayeen badeecado kala duwan oo bulshadu aad ugu baahan tahay. ugu horreyntiina waxaan wareystay mid ka mid ah madaxda suuqgeynta shirkadihii halkaasi badeecadahooda ku soo bandhigay. waxa uuna yiri, marka hore Kamaal, waa aad mahadsan tahay. waa inoo fursad inaan macaamiisheen halkan kala hadalno aalada TV-ga Kalsan. haddii aan u guda galo wax soo saarka shirkadeena, waa mid 14 sano jirsatay. waxaan soo saarnaa alaabo kala duwan, balse maanta waxaan halkan ku soo bandhignay badeecada loo yaqaano elektarooniga oo ah kuwa hore u jiray iyo kuwa cusubba. sida aad halkan ku arki karto, aaladan waxaa lagu magacaabaa Sow LED Light oo ah nal ku shaqeeya si fudud, wuxuuna qofka u fududeynayaa inuu qaadan karo meesha uu doono. waxa uu dheer qaabka daminta iyo daarista nalkan. adigoo dhinac u dhiga ayuu ku daarmi karaa, adiga oo dhinac kale u dhiga ayuu ku dami karaa. waa aalad fudud oo ay dadku xiiseynayaan. run ahaantii qiimihiisu waa mid aad u jaban oo saa uma badna. kunkii xabo waxa aan iibinaa lacag dhan 12.14 senti oo doolarka Mareykanka iyo waxa loo yaqaano zoom ama weyneeye oo ah soo dhaweyn waxa ka fog aalad mobilkaada aad ku xiran karto, kuna fududeynaysa in kaamirada mobilkaada waxa ka fog aad ku soo dhaweysan karto adigoo adeegsanaya mobilkaaga iPhone ama Samsung ama waxa uu doono ha ahaado oo aalad mobile ah. sidoo kalena waxaan la kulmay Teresa Jane oo ah madaxa shirkadda ahna qofka aasaasay shirkadan oo ah shirkad soo saarta badeecado kala duwan. waxa aan weydiiyay dhowr su'aalood oo ku saabsan bandhig carweedka iyo gaar ahaan shirkadan ay maamulaha ka tahay. waxa ay tiri, mahadsanid adiga iyo TV-gaada Kalsan sida quruxda badan leh ee aad noogu soo booqateen bandhig carweedkan iyo munaasabadan qiimaha badan leh. marka xigta, anigu waxaan ahay maamulaha guud ee shirkadan. waxaan soo saarnaa badeecado kala duwan oo aan oran karno macaamiishu waa ay ka heli karaan tayo ahaan iyo qiimo ahaanba. haddii aan kaaga waramo maanta waxyaabaha aan soo bandhignay waxaa ka mid ah boorsooyin iyo waxyaabaha lagu sharaxo gawaarida iyo guryaha, dumarka waxyaabaha ay xirtaan sida silverka iyo katiinada ama faraantiga iyo make-upka waxa la yiraahdo oo aad ugu muhiim ah dunida maanta. balse waxaan si gaar kuugu sheegayaa wax soo saarka shirkadan waa mid aqoonsi buuxda adduunka iyo China-ba ka haysata. waxaan soo saarnaa badeecado tayo fiican leh oo ay macaamiisheenu ka helaan, cimrigeeduna ama jiritaankeeduna aad u wanaagsan yahay, qurux badanna leh. eeg hadda boorsadaas oo ah nooca safarka ee lagu raaco diyaaradaha. waa boorso ka samaysan maqaar. inteeda badan waxa aan iibinaa lacag dhan $20 Mareykanka ah, meesha shirkadaha kale ee iibiyaan boorsooyinka noocan oo kaleeta ah lacag dhan $200 Mareykanka ah. arrintan waxaa noo fududeynaysaa in aan macaamiil fiican adduunka ka yeelano, gaar ahaan ganacsiga ballaaran ee Dubai ka socda. hadda waxaa badeecadeena inta ugu badan lagu iibiyaa Dubai muddo badan. waxaan macaamiil noo ah in ka badan 450 xarumo ganacsi ah oo ka diiwaan gashan dalkan UAE. intaas kadib waxa aan weydiiyay, ganacsigiina Afrika toos ma ula leedihiin mise? waxa ay iigu jawaabtay Teresa,
si toos ah hadda maya, laakiin waxaan xiriir la leenahay shirkado ka diiwaan gashan halkan oo saldhigoodu yahay Afrika, gaar ahaan wadamada Geeska Afrika, Bartamaha Afrika. waxaan badeecada ugu geynaa halkan Dubai, laakiin iyaga ayaa si toos ugu geeya maadaama aan weli qorshahaas tooska ah ee Afrika aanan diyaarinin annaga. laakiin mustaqbalka dhow waxaan rajeynaynaa rugta ganacsiga ee Hong Kong in ay arrintaasi dardargelin doonto oo shirkan mid la mid ah lagu qaban doono Afrika. laakiin ma rabo in aan arrintaasi ka hor dhaco, weli waqti badan ayaa dhiman, laakiin ma naga qarsoona in Afrika ay tahay suuq aad u weyn ilaa xad oo aan u baahannahay in aan gaarno. waa mahadsantihiin labadiinuba. taasina waxa ay ahayd Teresa oo ah maamulaha mid ka mid ah shirkadihii kasoo qayb galay bandhig carweedkii maanta lagu qabtay magaalada Dubai, waxaana la soo gaaray maalintii labaad ee shirka oo si toos uga soconaya magaalada Dubai Hayatul Jinsi Hotel. shirkan ayaa ah mid looga hadlayay arrimaha ganacsiga, gaar ahaan shirkadaha wax soo saarka Hong Kong iyo ganacsiga ballaaran ee ka jira Dubai. munaasabadan ayaa ahayd mid ganacsatadu ay aad u daneynaysay labadii maalmood oo uu socday shirka oo maanta gabagaba ah, waana sanadkii labaad ee lagu qabtay Dubai shir noocan oo kale ah oo ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga Hong Kong 11 November sanadkii hore 2014. Kamal Xasan Xuseen, Kalson TV, magaalada Dubai.